Warar dheeraada ayaa ka soo baxaya howlgal dhanka cirka oo iska kaashadeen dowladda federaalka ee Soomaaliya ciidamadeeda iyo saaxiibada caalamiga ah kaas oo ka dhacay deegaanada Baghdad iyo Baldooska oo hoos taga degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. Qaar ka mid ah ehelada dhaawacyo iyo meydad la keenay isbitaalka Madiina ee Muqdisho ayaa dowladda federaalka waxay ku eedeeyeen in howlgalkaas lagu laayay dad shacab ah. Waa kuwan iyagoo arintaas ka hadlaya. وإنا إليه راجعون وحمانت كده عوا هالفيميل ومانت أيجا نيجين ضد بيرالي وميل طبعا إنا أو لجوري أو هالفيميل كزوجة إلى قيسمية عدي ضد أنا ضد كميل جوعان هلا أستو هلا لو لكن يوين إسبتال رجيفان واحد قرمت أو سمية تايني سجرين مركز إسبتال كلجي أتا ضد كبدنا أنت الله صدق جوري إلى قيسمان سان عدالة دجرتو ضد كميل جوعان والوجي هلا قطعو شعبك يا الله ما أنت يا الله جيده هوستو أيقو تايقو صامن علمي إنك الله ساقعين ماشي كور ما عد قارة اللي بكل لا قارة داوي عود إلا حد كجر دولك على لا يهاي وأن هم في من إله قيس ما عدالة تدجرتو سان عدالة ما عدالة على فيرشو مدحوينا ما هنكني أوكي ودحي إدمة الدولة ده يو خلاص كسور جدي دجالك كدب حالي مغربي dad beeraley ah oo deegaankoodii ka soo barakacay oo beeri u soo barakacay ayaa beeri lagu duqeeyay oo hal family oo hal reer ah oo gaara dhimashadu waxay gaaraysaa ilaa 20 iyo koow ruux dhimatay oo hal family ah oo hal reer ka soo jeedo waxa dhaawacantay 19 ruux dhaawacantay oo hal reer ah wax dhintay oo dhan isku dar dhaawac iyo dhimashada waxa waa 40 qofood way hal reer ka soo jeedaan caruur iyo haweenan u badan waa gartay qoysas duqeynta baabiisna jirta ها اسكو قوس واي بواحد انتبه وهل رير وهل قبيل وهل لف واي واحد انت فاميلي بديه نين اناكتيسي عرورتيسا نين اناكتيسي عرورتيسا غبري هويدا عرورتيدا ساسو بدين عرور iyo haweenan u badan wax raga hadda waxa ku jiro oo dhaawacan waxa ku jiro laba rag dhimashadan waxa ku jirto laba rag inta kala haween iyo caruur wax dhintay wax gurmada ah heshan ma jiro maya dhaawacyada xalay la dhaawacay saakay ayaa loo gurmaday saakay subaxii loo gurmaday ilaa xalay markay jugta dhacday madfac koowad markuu ku dhacay raga u gurmaday oo tuulada diriska joogay markay tageen ayagana waa lagu dhuftay marka mid kale dad kale ku dhaawacmay oo ku dhintay gurmad saddexaad tagay waa lagu dhuftay mid saddexaad dhaawacii xalay dhaawacmay gurmadka ugu horeeyay saaka heleen Baghdad la yiraahdo tuulo Baghdad la yiraahdo deegaan Baghdad la yiraahdo Jambuluul wax yar u jira waxa u dhaxeeya Jambuluul iyo Basra u dhaxeeya marka maxaa dhibaato siyaasad wallahi diyaaradaad duqeysay anaga diyaaradaad duqeysay wax duqeey diyaarad waay ma ahan madfacna ma ahan hoobiyana ma ahan wax duqeey diyaarad waay xalay ma dhacay wax diyaarad guuxeedina waa laga maqlay tuulado dhan iyo waa meelaha diriska waa laga maqlay kulli waa laga warqabaa diyaarada duqeysay dad shacab oo maatiya oo beeraley oo aan waxba galabsanin oo caruur iyo haween u badan lagu leeyahay meeshaas tirada dhimashada 22 waay dhaawacna 17 waay oo hadda isbitaal Madiina ku jiraan dhaawacyada dhan isbitaal Madiina keenay وانا قارنا ودريهين قارنا واعينتان waxaa dalbaleena dawladdu waxa ka dalbaleena dadka waa dadkeedii waa dawladda Soomaaliyeed dadkeed dawlad ku tahay dadka ay xasuuqday ee xasuuq u geysatay inay xuquuqdoodii iyo cadaaladoodii ay helaan ama baaritaan loo sameeyo هاي مايسا بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد إنا لله وإنا إليه راجعون waxaan halkaan u tacsiyeenayaa eelkeyga dhimashadii iyo dhaawacii soo gaaray aniga koreeta anigu xamaraan deganahay laakiin waxa dhibka ku dhacay waa ehelkeyga weeye oo lagu weeraray tuuladoodii iyo beerahoodii haddii loo sheegi lahaa oo la oran lahaa war halkaan isaga baxa way isaga tegi lahaayeen balse si kiis ah ayaa diyaaradii ugu weerareen beeriyaa loogu tegey waxa ugu daran wax waay gabar oo 12 qoys ka soo jeedo waa cunug yar oo 4 jir ah ayaa ka fakatay reer dhan waxa ka fakatay hal gabar ka fakatay marka anaga waxa u dul qaadan karna ma aha dawladdu waa in arintan naga soo talisaa weena saxweena xasuuqeen ari dhintay aan ka hadashaan ari dhintay intaas oo ka hadashaan bini aadana leenaysaan anaga waana la xasuuqay waxaana xasuuqay dawladana xasuuqday diyaaradii ayaga caabinayna xasuuqday cid kale mana xasuuqin dawladdu waxaan ka codsanaynaa inay arintaasi ay ka soo taliso guddi u saarto dhaawacyadii hadda isbitaalka ay jiifaan Madiina ay jiifaan isbitaal Madiino
isbitaal madiina dhaawacyadu ku jiraan dawladda ha timaado ha aragto wixii nala gaaray waa caruur iyo haween wax la gaaray wax la dilana caruur iyo haween u badan ragga oo dagaalamayna waa ogtihiin meesha joogaan waa ogtihiin anaga maxaan u laaneysaan maxaa dadka iyaga u laaneysaan walaahi la iska yeelayo dawladdu waa inay soo talisaa intaas ay ahayd dawladdu waa inay soo talisaa ehelkeena la baabi'iyay maatadeena la baabi'iyay hanti waxba ma aha laakiin dadkaas nalaga laayay iyo dadkaas dhaawaca oo isbitaal madiina noo jiifo dawladdu waa inay ka soo talisaa waa arintaas inay ka hadashaa oo ugu weeyaan madaxweynaha ra'iisul wasaaraha baarlamaanka iyo xubnaha wasiiradoo dhan waa arintaas inay ka soo taliyaanin dhibkaasaan ugu dhacay waxa u dulqaadan karna ma aha wiliba waxa la sheegayaa dadaa beerihii ku jira wiliba dadaa beerihii ku jiro oo dhaawac iyo dhimasho ah wiliba dhaawac iyo dhimasho intaa wax sii badanaya beerihii ku jiraan dadkii waa dadkii inta yareedoo oo la arkay la soo carar waaye dadka howday ku jiraan dhowr sano dadka wax ma tacban oo ma shaqeysan oo hadda xoogaa yar la helay nabad yar la helay haddana macnaha dhibkaana nagu dhacay dawladdu waxaan ka codsanayaa inay si degdeg ah baaqeena ugu soo jawaabto wabillahi tawfiiq dhibaato weyn oo aad iyo aad u fool xun ayaa dhacday ilmo saqiiraa caruur iyo hooyadood oo meel ku gambanaya ayaa la qarxinaya dhibaataa taalla cid wax qabanaysa ma leh meel waxa loo cuskada ma leh haddii la aruuray dadki waxba qabsan waa beerihii bay tabcanayeen beerahoodii waa laga eryanaya guryahoodii waa laga eryanaya halkee baa loo cararaa muslimnimo haddii jirto oo dadnimo jirto oo dawladii jirto dadkan waxa loo qabto haddaan loo qaban karayna dee waa warcada waxa weeye qawda maqashii waxna ha u qaban saddex caruuri hooyadood baa dhintay mid baa madaxiisii meel laga soo raadiyey gobolkii kala saaka la helay ilaa xalay baa dhiig loo baxay xamar ma gawaadhi baa laga waayay ma diyaaradaa laga waayay dhibaata meeshan taala rafaadaa yaalla madaxweynaha xasan sheekh waxaan leeyahay ummadda wax u qabo haddaanad u qabanayna dee kursiga iskaga deg magacuyaal ha u fadhiin ummadda ama wax u qaba ama ha u qaban kala caddayso waa ka warkayga intaas ku ogi hadalkan ayaa imaanaya iyadoo dowladda federaalka ee Soomaaliya aroortii hore saaka ay sheegtay in 39 xubnood oo ka tirsan al-shabaab ay ku dileen howlgal iska kaashadeen ciidamada qalabka sida iyo saaxiibada caalamiga kaas oo ka dhacay deegaanada Baghdad iyo Baldooska hoostaga degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose sidee dowladdu sheegtay howlgalka koowaad ayaa ka dhacay deegaanka Baldooska waxaa lagu dilay 24 ka mid ah dagaalyahanada al-shabaab halka 15 kalena lagu dilay duqeyn ka dhacday deegaanka Baghdad Mahad Mutawakkil Honkebel TV Muqdisho